iyadoo si habsami ah uga dhex socda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tartankii wareegga gobolada Somaliland laguna jiro wajigiisii saddexaad ayaa maanta garoonka Lamse Stadium ee magaalada Burco ay ku dareen xulalka gobolka Maroodijeex iyo Sanaag. ciyaartan oo ahayd mid xamaasad badan ayaa waxaa ka soo qayb galay daawashadeeda kumanaan ka mid ah taageerayaasha labadan kooxood. ciyaartan oo ku bilaabatay weerar iyo weerar celis ayaa ay haafkii hore ku soo dhamaatay eber iyo eber barbadhaca oo aan labada goolba wax isla dhaafin, balse isu noqodkii ciyaartan ayaa noqotay mid xamaasadeedu aad u sareyso, waxaana ciyaartani dardar xoogan la soo gashay xulka gobolka Sanaag oo la moodayay in aad loo soo canaantay. daqiiqadii 17aad ee haafka dambe ee ciyaarta ayaa u suurta gashay xulka gobolka Sanaag inuu dhashado goolkiisii koobaad, taasoo keentay in intii badneed ee ciyaarta haafka dambe ay ku hogaamiyaan 1-0, balse natiijadii dhamaadka ciyaarta ay u suurta gashay xulka gobolka Maroodijeex inuu keeno goolkiisii barbardhaca, taasoo dhibcaha uu yeelanayaan ay noqonayso 5 dhibcood. dhinaca kale aan soo diyaarno in afarta waxa weeye kulay ciyaartaas aan waa u diyaarnaa ciyaarta afarta oo rajayna inaan kulay ciyaar wanaagsan muujino guul ka keenno insha Allah. وانا وحوي لا وبن كبر وينا وحلا يقولش نسيو وانا دلنا ان شاء الله. والله هذا عيارتي wanaagsaneyd كنت waxa ciyaartii koobaad ee aan igu adkaatay ciyaartii aan ciyaaro dhan marka ciyaartu waxay wallahi ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ciyaar fiican oo aad u aragay runtii waxaan ku dhamaatay natiijo fiican oo barbardhaca inkastoo aanu qalanayno badino gool badan oo sax ah dhashay garsoorku diiday laakiin si wanaag saa ku dhamaatay waxaan ku qanacsanahay maadaama aan 5 dhibcood aan gaarnay in gruubka ka soo baxay dhibcood kalena tartankii orodada fudud ee ka socday ka barbar socday tartankan ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa maanta kaalinta koobaad ee orodkaas ay ku guuleysteen xulka gobolka Togdheer, waxaana berri si weyn loo sugayaa ciyaarta xiisada iyo xamaasadda badan ee dhex mari doonta gobolada Sool iyo Saaxil, taasoo noqonaysa ciyaaraha lagu kala ogaan doono natiijooyinka rasmiga ah ee Group B. Cabdi Faarax Abdullaahi, shabakada caalamiga ah ee Burco Online, magaalada Burco.